Thank you. daawadayaal sidaad u jeedaan waxaan soo dhaweynaynaa maantay oo halkan aan ku sugannahay waa garoonka Jomo Kenyatta waxaan soo dhaweynaynaa fanaan qaali nagu ah oo aad wada taqaanaan sida ka muuqata dayaxdal nuurshe waxaan ku soo dhaweynaynaa garoonka Jomo Kenyatta ee magaalada Nairobi dayax waxa uu u yimid inuu ka qayb qaato program qiimo badan oo ka dhacay magaalada Nairobi programkaas oo ah Somali International Fashion Show oo ah program ku cusub Soomaalida oo aan wali ka dhicin dalka iyo dhamaan banaanka barnaamijkaas ayuu qayb ka yahay dayax wuxuu nooga yimid Muqdisho asagoo tixgelinaya dhalinyarada soo qaban qaabisay barnaamijkaas azuumaad ay u fidiyeen dayax soo dhawo وادوه walaalkii Cabdishakuur waa mahadsan tahay markii koowaad ma aha waa markii labaad laakiin waa markii ugu muhiimsanayd oo ay maatid marka number 1 horta waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dhalinyaradii gabdhihii walaalahii ahaa iyo wiilasha walaalahii ah maxaa la isheegay meeshan fanaaniinta ka marneen actresska ka marneen kaamiramanadii ugu qaalisanaa Soomaalida aan ka marneen qaban qaabiyaashii iyo dadkii maskaxda iyo maxaa la isheegay ugu qalbiga wanaagsan aan ka marneen meeshan maanta ku dhan yihiin waqtiga baa yar naga yar wada yani naga yar dhacay waa u mahad celinayaa waana ka raali gelinayaa daahirna soo yar galay saakeena imaanay galab ay nagu noqotay oo ku faraxsanahay ka soo qayb galka programka Somali International Fashion Show ka dhici doona insha Allah habeen dambe oo magaalada Nairobi dalka Kenya runtii waxay noqonaysaa waxaan hore looga baran unique ah Soomaali waxyaabo unique ah Soomaalida anaga caalamka iyo waxyaabo TV aan ka daawi jirno oo aan isdhihi jirno ma la hamin karin suuragalkooda inay dhalinyaro Soomaaliyeed soo qaban qaabiso ay maanta sameeyaan waa wax horumarka kamida waa wax maxaa la ii sheegay kamida inaan Soomaalinimadii iyo inaan nahay dad jira waa wax kamida marka waa ku faraxsanahay imaatinka iyo soo dhaweynta qiimaha iyo qaayaha badan ee ay sameeyeen dayax wuu mahadsan yahay in fanaaniinta kalena waa siinayna laakiin dadka ina daawanaya waxaan u sheegaynaa in habeen damba showga Somali International Fashion uu ka dhacayo hotelka Crown Plaza oo ku yaala wadada Abahil meeshii hore loogu tala galay waa laga bedelay sabab jira awgeed maadaama dad badan ay gateen invitationkii meeshii ay buuxsantay waxaan si gaar ah ugu mahad celinaynaa dhalinyarada soo qaban qaabisay barnaamijka dhamaan Somali International Fashion Show nasiib soo dhawo adigana habeen dambe waxaad ku jirtaa dadka fashion ka qayb qaadanaya fanaaniinta sanadkan ayaga galaayo fashion aw dad kale la raadi jiro oo xayziima ay wax sameeyay warni horta aniga fashion ka qayb gali karaa laakiin dad aan ogahay intaas bay leeyihiin kullu uu gaarsiin doona raagay aad baan ugu faraxsanahay my brother the one and only legend dayaxdal nuurshe oo deema taqaana maanta aan habeen dambe xayziinta ka qayb galnaanay waxa ka cabsana xayziinta dadka ku jiro in la dhaho nasiib iyo dayaxa noo heesina bal idinka noo socdana Allah ya عزك dad badan baa isdhibayo lugi gacan ka horeysa laakiin Somali International Fashion Show wallahi waa fashionkii ma taqaanaade ugu horeeyay Soomaali abid ay sameeyso waxna waa iska sameys waxna waa caalami wixii markay caalami yihiin dadka ka dhex muuqda iyo dadka sameynaya iyo aqliyada meesha dhex taala laga fahmaa marka waxa waaye wallahi ana caadi ah bay tahay ka soo qayb galtay hadaa dayaxna aad u jeedaan habeen dambe ma taqaanaa waa kala kacsanahay kala yalaab wadaas Yubeysani nasiib waa maasantahay Yubeysani inta u gaarin barnaamijka sidoo kale waxa ka soo qayb galaya oo ka qayb qaadanaya madax ka tirsan dalka Kenya dawladda Kenya oo ay Soomaalida ugu horeyso maadaama anaga Soomaali aan nahay waxaan la qabanayo Soomaali loo qabanayo dad badan oo madaxa waliba madaxda ugu muhiimsan dalkan ee Soomaalida ayaa qayb ka noqonaya Yubeysani hal ilaba adigana oo jirta dadka fashion Cabdishakuur aad ma santaa horta marka hore waxaan leeyahay walaalkay Dayax soo dhow welcome to Nairobi aniga sida nasiib maniin ani aad badanay xamarka soo buriyo inta torta ku soo jara nooga baxmay ani aad badanay welcome to Nairobi kulli Dayax haduu imaado Nairobi habeen dambe waxaan filaysin barnaamij aad u qurux badan fanaaniinta Nairobi intii ugu qatarsaneed intii ugu shilneed oo ku jira Dayax waa inuu habeen dambe أنا هرتي كور فاشون كنا كور هذه فاشون أنا مكخب جيلي كري ما ما قابل أنت كذا قابل دتك قابل أنا شيء تابي جرا أنا كده أنا كبخب جيلي كري كله بعدي وحلقة هذا أنا ضيح وحلقة هذا يا نصيب لكن تبغون كده ماشي أقول جرا يوسف ما صنت هاي سيدو كله هبين كاس وحن ماشي كم مرنين وهي سكلية يفاشون مجرم
waxaad meesha ka marneen Big Bro oo aad wada taqaanaan iyo qosol habeen dambo waa loo daadanaa ee xalim dheeray ay Big Bro عادقافي intii waa soo dhaweynaa Somali fashion ka oo kii ugu horeeyay qabataa laakiin aniga Big Bro kuma jirin fashion kaas laakiin waxaan dadka u sheegi doonaa bal fashion ka ee Soomaalidu arkaan هذه Big Bro laakiin kama qayb qaadanaysa kama qayb qaadanaysa laakiin Soomaalidu bal fashion kan ku cusub sida ay ka aaminsan yihiin dadkan oo wadada yar loo sameeyay socda iyo bal sida ay u arkaan baan insha Allah kaga qayb gali doonaa macnaha waa qaab dadku waan ka qosin doonaa insha Allah Bro hay علشان علم الكهل بيا سأقول الله horta ani fanaaniinta badna markay imaanayaan horta ma soo dhaweeyaan ma garan qofkii ugu weyn oo ani aan taageero baan soo dhaweeyaa hadana qaasatan adiga because haweenin dhalinyaro tahay aad baan ku taageeraa may waxa waaye marka Nairobi qalbigayga ogeed waxa aniga iyo xaaskay family-ga dhanbo soo wadawaada Nairobi ku soo dhawaada mid kale barnaamijkan oo fashion ka horta aniga cilada badan ay haysto laakiin waxa uu qayb galaya barnaamij maarta waxaan sameyn rabnaa aad u qurux badan yaa arkay yaa maqlay dayaxna sidoo kale heeso oo caadi ahayn oo noo wada nasiiba ku jiro iyo beezani waa la badan yahay fanaaniin badan ku jiraan marka ani iyo ninkan film baa meesha ka jali doona hees kaliya uu ku jira hadhootida ma u sheegi doona asxaabta hoolkii sidoo oo wariyeen uu sheegay asxaabta uu sheegay hoolkii ana u maleynaa waa la bedelay dad badan u sheegay taa hoolkii waxa loo soo bedelay Crown Plaza oo ku yaala Upper Hill asxaabta soo dhawaada reer Nairobi barnaamij aad u qurux badan waaye marka waxaan rajaynayaa insha Allah inaad soo dhawaataan thank you waxa kaloo kamid ah fanaaniinta ka qayb galaysa Somali International Fashion Show ila yare iyo qaaliladan iyo fanaaniin kale oo ku sugan maxallaha Nairobi dayax maanta wuxuu kamid yahay dadkii la soo dhaweeyay dad badan oo waxa jira imaaday oo laakiin aan la soo dhaweyn laakiin barnaamijka qayb qaadanay oo dal iyo dibad ka imaaday dayax qofkii ugu dambeeyay aan soo dhaweyn oo kamid yahay laakiin iila iyo qaaladan maxaa ka wada astaaq waxa kamid ah iila qaaladan baa marka dadka u baahan in xog fiican ay ka helaan barnaamijka ama tigidhka qaabka lacagta loo bixinayo meesha waxa loogu soo qorayaa hoos si ay ugu akhristaan boorka laakiin meesha uu ka dhacayo meesha hore waa la bedelay oo waxa la geeyay Grand Plaza marka cid walbo oo ka qayb qaadanaysa waa la soo dhaweynayaa dhamaanna waxaan rajaynayaa Soomaalida ku nool Kenya oo dhan waa Nairobi ma inay imaanayso waayo dad badan oo waxa jira xiise ay u qabaan barnaamijkaas dartiis Mareykanka iyo Yurub oo yimaada inay ka qayb qaataan